بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah Israa'iil oo caawa ay ka taagan tahay xaalad adag kumanayaal kun oo banaanbaxayaal ah ayaa isku soo ururay fagaarayaasha waaweyn iyo xarumaha xukuumadda iyo dawladda iyadoo lagu soo waramayo in dadku ay dalbanayaan si degdeg ah dagaalka qasa in lagu joojiyo mucaaradka ayaa ku baaqaya banaanbaxayaasha inay sii wadaan banaanbaxyada ilaa iyo inta la ridayo xukuumadda Netanyahu wararkii ugu dambeeyay xaaladan adag ee Israa'iil ka taagan ayaan idin soo gudbinaynaa madaxweynaha Syria oo si cad u sheegay mowqifka dalkiisa ee la xiriira in ay ku biirayaan heshiiska Ibrahim oo qaar ka mid ah wadamada Carabtu Israa'iil ay kula soo ceshadeen xiriirka dhanka diblomaasiyadda dhanka qasana Israa'iil waxay wadaa mid ka mid ah duqeymihii ugu bacnaa iyadoo lagu soo waramayo dad ku dhow 60 qof tan iyo saaka hiirtii waa bari in lagu dilay duqeymahan tani waxay ku soo aadaysaa iyadoo golaha wasiirada Israa'iil la filayo inay yeeshaan kulan caawa kaas oo lagu go'aaminayo howlgalka military ee lagu doonayo in lagu qabsado marinka Gaza iyo in go'aan looga qaato soo jeedintii Xamaas ay ku aqbashay hindisaha xabad joojinta waxaan kaloo eegi doonaa warbixino ku saabsan kumanayaal kun oo reer Bakistaan ah ayaa laga qaxiyay guryahoodii kadib markii Hindiya ay ku soo fatahday biyo xiranada biyaha lagu kaydiyo ruushkana waxaa la sheegayaa dhul hor leh inuu ka qabsaday Ukraine dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay tiin hawada ku jirno iyo falaqayntii oo aan idinkugu hayno qodobo xiiso leh ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa maxamed cabdi oo barnaamijka isku soo duway ayaa qadka ku jira maxamed inoogu bilow wararka ugu waaweyn warbaahinta Israa'iil ayaa ku waramaysa kumanayaal mudaharadayaal ayaa socod ku maraya iyagoo ku sii jeeda xarunta madaxtooyada ee magaalada Qudus iyadoo amniga la adkeeyay isla markaasna golaha siyaasadana ay kulan ku yeelanayaan magaalada Qudus janaalka 12aad ee Israa'iil ayaa sheegaya in mudaharadayaasha ay xireen wadada loo yaqaano wadada xeebta ee ku taala koonfurta Atlil ee magaalada Haifa taasoo qayb ka ah mudaharaadyo lagu dalbanayo in dagaalka la soo afjaro maxaabiistana lagu soo celiyo saacadihii la soo dhaafay Israa'iil ayaa dardar gelisay duqeynta ka dhanka marinka Gaza iyo magaalada Gaza iyadoo ciidanka Israa'iil ay qaadeen duqeyn aan horey loo arag iyo burburin weyn oo ay la beegsanayaan deegaano ballaaran oo ka mid ah magaalada Gaza oo ay ka mid yihiin xaafadaha Zaytuun As-Sabra ee ku yaala bariga magaalada Gaza sidoo kale diyaaradaha loo yaqaana droniska ee aan duuliyaha lahayn ayaa iyagana sidoo kale la sheegayaa in ay qaraxyo ridayaan ilaha caafimaadka ee marinka Gaza ayaa ku waramaya in ka badan 53 Falastiiniyiin in ay ku dhinteen natiijo ah duqeynta waalan oo Israa'iil ku qaadayso magaalada Gaza halka idaacadaha maxalliga ah ay ku waramayaan 100 Falastiiniyiin in ka badan in lagu dilay 24 saac ee la soo dhaafay marinka Gaza waxa iyadana wararka ku jirta in 9 ka mid ah dadka dhintay inay ahaayeen dad cunno saf ugu jiray xuduudka Gaza ayaa tiro fara badan oo taangiyaal oo Israa'iil leedahay ayaa lagu arko isku soo urursanaya ka hor walaha wasiirada Israa'iil inta aynan kulan yeelan ay uga wada xaajoonayaan tilaabada xigta ee lagu meel marinayo go'aanka ah sidii magaalada Gaza loola wareegi lahaa markii horreysay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu afhayeenkiis ayaa ku dhawaaqay in golaha ammaanka ay kulmi doonaan magaalada Qudus iyadoo hadda mudaharaadyo waaweyn ay bilowdeen dhanka kale Kataib al-Qassam ayaa dhawaan daqiiqadihii hadda ugu dambeeyay soo bandhigay sawir cusub oo muujinaya 5 askari oo Israa'iiliyiin weerar gaadma ay u dhigeen sida videoga laga arkay 20 ka midna ay ku dhaawacmeen xilliga sawirkaasi la qaaday lama yaqaan dhanka kale warbaahinta Israa'iil ayaa ku waramaysa in kulanka golaha wasiirada Israa'iil looga wada xaajoon doono qorshaha ay Israa'iil ku tala jirto inay magaalada Gaza ku qabsato intaa waxa dheer waxaa iyadana ay looga baarandegayaa in wada xaajoodyada xabad joojinta in lagu noqdo laga fikirayo iyo sidii maxaabiista marinka Gaza ku xiran loo soo deyn lahaa weerarada duqeynta Israa'iil ay ku qaaday isbitaalka Nasir
ayaa lagu tilmaamay inuu yahay wax aan la aqbali karayn sida ay sheegayaan diblomaasiyiin ka tirsan ururka midowda Yurub. bayaan ay soo saareen ayaa lagu xusay dadka rayidka suxufiyiinta waxaa waajiba in la difaaco sida ku xusan qawaaniinta caalamiga ah sida lagu sheegay bayaan laga soo saaray ururka midowda Yurub. waxa ayna ku celiyeen uguna baaqeen Israa'iil inay xushmeyso xeerarka caalamiga ah ee bini'aadanimada iyo in la xaqiiqsado in weerarada lagu qaaday isbitaalka baaritaan lagu sameeyo. waxaana hoosta laga xariiqay bayaan ay xukuumadda Israa'iil soo saartay inay baaritaan buuxa ku samayn doonto xaaladii ka dhacday isbitaalka. waxaa sidoo kale la sheegayaa dadka isbitaalka ku dhintay iyo colaadda inay tiradooda aada u badan tahay. weerarka lagu qaaday isbitaalka ayaa ugu yaraan 20 qof ku dhinteen oo 5 ka mid ah ay suxufiyiin yihiin sida warbaahinta lagu sheegay iyo warar ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee ururka Xamaas. Chancellarka waddanka Jarmalka Friedrich Merz ayaa sheegay in dalkiisa uunan ku biiri doonin dalalka reer galbeedka ee aqoonsanaya xukuumadda ay Falastiiniintu leeyihiin marka la gaaro bishii Sebtembar golaha guud ee qaramada midoobay shirkiisa. Merz oo shir jaraa'id uu wadajir ola yeeshay ra'iisul wasaaraha waddanka Canada Mark Carney markii uu booqasho ku tegay. saacadee wasiirka koowaad ama ra'iisul wasaaraha waddanka Canada ayaa bishii la soo dhaafay ku dhawaaqay in Canada ay ku tala jirto inay aqoonsato xukuumad ay Falastiiniintu leeyihiin marka la gaaro shirka golaha guud ee qaramada midoobay. tilaabooyinka saas oo kaleana waxaa qaaday Britain iyo Faransiiska. waxaa intaa dheer in Jarmalka uu arko in la aqoonsado xukuumad ay leeyihiin Falastiiniinta inay qayb ka noqon doonto tilaabooyinka ugu dambeeya ee wadada loogu gool xaarayo laba dowladood oo iska barbar jira oo Israa'iil iyo Falastiiniintu leeyihiin, taasoo u ogolaan doonta Israa'iil iyo Falastiiniinta inay si nabad ah isugu dhinac noolaadaan. waa sida hadalku dhigeen. warbaahinta Mareykanka qaar ka mid ah ayaa soo xiganaya gacan yare ra'iisul wasaaraha Israa'iil nin u ah oo sheegaya in ururka Xamaas la siin doono ilaa ay bartamaha Sebtembar inay ku ansixiso heshiiska. saacadee ninkan gacan yaraha ayaa waxa uu sheegayaa heshiiskaasi waxa waajiba inay ku jirto in maxaabiista oo dhan la soo daayo, ururka Xamaasna xukuumaddiisa in la burburiyo. haddii Xamaas ay ogolaan weydana sida uu sheegayo ninka gacan yaraha oo ah ra'iisul wasaaraha Israa'iil in ay dhammaystir doonto howlgaladeeda military ee dhowaan bilaaban doona si ay ula wareegto magaalada Gaza. wararka caalamkana waxaa ka mid ah waddanka Pakistan ayaa ka daadgureeyay dad ku dhow 150,000 deegaano saddexda webi ee mara laga cabsi qabo in ay biyo ku fatahaan kadib markii Hindiya ay digniin ku bixisay inay qorsheynayso in biyo xireen weyn oo dalkeeda ku yaala biyaha dheeraadka inay ka saarayso sida saraakiisha Pakistan ay sheegayaan. roobab xoog leh iyo daadad ayaa labada dalba toddobaadyadii la soo dhaafay saameyn weyn ku yeeshay. saacadee in biyo badan laga saaro biyo xireenkan ayaa waxa ay saameyn ku yeelan doontaa gobolka la yiraahdo Punjab oo ah gobolka xagga beeraha ugu wax soo saarka badan waddanka Pakistan. waxaana laga yaabaa in daadad badan ay ku soo rogmadaan. saraakiisha Pakistan ayaa sheegaya in ay digniin degdega ka heleen Hindiya oo la xiriirta inay qorsheynayaan in ay biyo xireenka biyo si dhaqso ah uga saaraan. biyo xireenkaas ayaa waxa uu ku yaalaa waddanka Hindiya gudihiisa meel ka baxsan buuraleyda dariska la ah Punjab ee Hindiya. ayaa marmarka qaar biyo xireenka markay biyo badan galaan ka saarta. hase ahaatee xilligan waxaa leeyahay roobab mihigaan oo fara badan oo da'ay ayaa labada dalba waxaa soo wajahay daadad iyo biyo xireenka oo buux dhaafiyey. wararka caalamka waxaa kaloo ka mid ah Ruushka ayaa qabsaday 2 tuulo oo ku yaala koonfurta bari ee gobolka Dnipropetrovsk ee waddanka Ukraine.
ilo Ukraine ka tirsan ayaa sheegaya in ciidamada Ruushka ay weeraro qaadayaan iyadoo heshiiskii diblomaasiyadeed ee la rabay in lagu soo afjaro dagaalka uu istaagay. Ukraine oo laga ciidan iyo hub badan yahay ayaa dhibaato weyn waxaa ku haysa sidii u difaaci lahayd weerarada Ruushka oo la sheegay inay yihiin kuwa ugu xooga badnaa ay ku soo qaadeen bariga Ukraine. Ruushka ayaa sidoo kale dardargeliyay cadaadiska ka dhanka Ukraine si ay dhulka ay Ruushka u qabsadeen u xalaaleystaan inta aan wadaxaajood nabadeed la gelin. waa tahay maxamed waa mahadsan tahay daawadayaashu way mahadsan yihiin mar kale ayaan soo dhaweynaynaa waxaan u gudbaynaa daawadayaal falaqaynta wararka iyo wixii warah ee degdeg ah soo kordha laakiin aynu ku hakanno qadar xayeysiina soo dhawaada mar kale daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa hagaag maxamed aan ku bilowno banaanbaxyada Israa'iil ka socda waxaa leeyahay banaanbaxyadan waa kuwa aad u ballaaran waxaana wacd ay ku marayaan qabanqaabiyaasha banaanbaxyadu inay wadi doonaan banaanbaxyadan toddobaadkan oo idil mucaaradku waxay ku baaqayaan in la sii wado banaanbaxyada shaqo joojin la sameeyo xukuumadda jilbaha dhulka loo dhigo dhaqaalaha jilbaha dhulka loo dhigo lagu qasbo Netanyahu iyo xukuumaddiisa in ay iscaasiisho ama dagaalka uu yaran ay joojiso ciidankan laga soo saaray Gaza. Netanyahu nin arrimahaasi u dhigan nugul ma muuqda taa cagsigeeda Netanyahu waxa uu abaabulayaa oo kulankan ballaaran uu la yeelanaya golihiisa wasiirada oo dhowr saacadood ay ka harsan yihiin in uu ku dhawaaqo qorshayaashii uu damacsan yahay taageerana uga helo golihiisa wasiirada. qorshayaashiisa ayaa khabiirada la fagura arrimahani waxay ku sheegayaan inay adag tahay in la meel marin karo oo ay ka mid tahay in ururka Xamaas ay hubka dhigto iyo inuu qabsado magaalada Gaza oo dagaalkan labada sano socday oo la isku riiqday ay u caal waayeen wax ka qaban waayeen. khabiirada wali waxay ku nuucsanayaan askarta dagaalkan ka qaybgalaysa ayaa la sheegayaa kulligood inay yihiin askarta kaydka oo aan khibrad iyo aqoon u lahayn. kuwii khibradda iyo aqoonta lahaa waxaad moodaa inay dib isu dhigayaan waxayna khabiirada qaar sheegayaan askartan oo dhalinyaro u badan ayaa laga yaabaa meeshaasi in ay weerar ku qaadaan. Xamaas cadaadiska siyaasadeed iyo midka diblomaasiyadeed lagu wado iyo gacmaha qarsoon ee carbeed ee ku dhex jira ayaa waxaa jira barnaamij gaar ah oo aan ka sameynay oo daawadayaasha ay ka fiirsan karaan idaacadda HBN. wasaatee Xamaas waxaad moodaa in dhinac walba uu culays ka saaran yahay shacabka iyo Xamaasna waxaa ka go'an sida ay khabiirada hadal ku dhigayaan in ay naftooda difaacaan iyo ciidooda. aad iyo aad hagaag weli barnaamijkaasi caawa ayuu soo geli doonaa daawadayaal waxyaalaha mawaadiicda aan ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah wadamo carbeed iyo Mareykanka oo la sheegayo waqti inay u qabteen Netanyahu inuu kaga takhaluso Xamaas iyo ururada iska caabinta ha u dayma la'aanina barnaamijkaasi falaqaynta wararka caawa ayuu soo geli doonaa haddii alla idmo macluumaadyo kale ayaa ku jira xitaa oo ay ka mid tahay Netanyahu oo doonaya in laga saaro dhexdhexaadiyaasha Masar iyo Qatar laguna bedelo waddan kale oo carbeed oo xiriir fiican ay leeyihiin. waayahay maxamed dhinaca kale aynu eegno midowga Yurub ayaa dhan bay wadaan Israa'iil 5 wariye oo shalay la dilay waxaa ka sii horeeyay wariyaal aad u fara badan oo 200 ka badan marka hadalladan ay leeyihiin waa in baaritaan lagu sameeyaa iyo la isla xisaabtama iyo intaas oo idil ayadoo ay socoto hadana midowga Yurub wuxuu diidan yahay Israa'iil ugu yaraan cunaqabateyn dhaqaale inuu saaro ama uu joojiyo heshiisyada iskaashiga ganacsiga ay leeyihiin iska badaa in markaasi cunaqabateyn xagga hubka lagu soo rogo laakiin xagga ganacsiga xitaa in la cunaqabateeyo way diidan yihiin dhowr wadan oo midowga Yurub ka tirsan oo Jarmalka ugu horeeyo ayaa mar walba hor istaagaya qaraar kasta oo Spain iyo Norway ay keenan iyo Ireland marka inkastoo Norway ay ka mid ahayn midowga Yurub laakiin haddana Yurub ahaan ay dood u wadaa laakiin wadamada xubnaha ka ah sida Ireland oo kale iyo Spain oo kale dhowr mar ay keeneen qaraaro waa lagu gacan sayray marka hadalkoodan hadda ay sheegayaan oo idaacadda aynu ku maqlayno muxuu macnaa u sameynaya wadamada Yurub sida ay khabiirada hadalka u dhigayaan uu ka mid yahay Professor Jeffrey Sachs waxa ay lumiyeen galgalkii iyo miisaankii ay lahaayeen
waxaa muuqata wax walba ay hadda sameeyaan inayn Israa'iil waxba ka maqli doonin. Israa'iil waxay haysataa taageerada waddanka Maraykanka markay noqoto xagga dhaqaalaha, markay noqoto xagga agabka militariga, markay noqoto xagga diblomaasiyadda iyo dhegaha madaxweynaha waddanka Maraykanka Donald Trump. waxaa sidoo kale oo aanan meesha ka maqnayn inaynan ka maqlayn wadamada Yurub wax wara oo aan ka ahayn Maraykanka. hore ayayna u sheegeen mas'uuliyiintooda cidda kaliya ee aan u baahanahay inaan taageero ka helno ay yiraahdeen Israa'iiliintu waa Maraykanka. qolyahan kale waxa ay sheegayaan wax macno ay sameynayso lama arko. Jarmalka waxaad moodaa in uu asaga keligii gaar u socdo uunan ogolayn in xukuumad Falastiiniyiin uu aqoonsado. laakiin golaha guud ee qaramada midoobay ee bisha soo socota shir yeelan doona ka hor ayaa ay isku dayayaan Israa'iil iyo xulufadeeda ama kuwa Carbeed ha noqoto ama Maraykanka ha noqoto iyo kuwa isdhuumanaya culays xoog leh ayaa ku soo socda golaha guud ee qaramada midoobay. waxaa la saadaalinayaa in si aqlabiyada loogu dhawaaqo xukuumad ay Falastiiniintu leeyihiin iyadoo uu ku dhawaaqi doono xogayaha guud ee qaramada midoobay. xeer dhifa oo inta badan la isticmaalin ayaa la rabaa in lagu dhaafo golaha guud ee qaramada midoobay. haddii uu xeerkaasi ka soo baxo dowladda Maraykanka awood uma yeelan doonto in ay diidmo qayaxan jeediso, sababtoo ah golaha guud ee qaramada midoobay cid diidmo qayaxan haysata ma jirto. haddii si aqlabiyada la isugu raaco Maraykanka iyo inta la socoto go'doon ayay noqonayaan, waxaana bilaabanaya weji cusub. waxa ayadana aan meesha ka maqnayn abaabul colaadeed oo Iiraan iyo Xisbullah ay isu diyaarinayaan maadaama Israa'iil ay hanjabaadeeda ka dayn weyday Iiraan. Xisbullahna dhowrka maalmood ee ka haray bishan waxaa dhammaanaysa waqtigii loo qabtay ahaa inay hub ka dhigto. xogeyaheeda guud Naciim Qaasim si buuxda ayuu sheegay inay khiyaano qaran tahay in Xisbullah hubka laga dhigo. waxaad moodaa in ay balaayo sarag leedahay sida hadalka loo dhigay. way aynu eeg dhankan warka ku saabsan Axmed al-Sharaac madaxweynaha Syria warkan ku aadan in Israa'iil heshiiskii ay carabtu la galeen ay ku biirayso Syria. warkaas maxaa lagu sheegay? madaxweynaha cusub ee waddanka Suuriya Axmed al-Sharaac ayaa meesha ka saaray in dalkiisa uu ku biirayo heshiiska Abraham loo yaqaano, wuxuuna ku adkaysanayaa in dalkiisa colaadda uu Israa'iil kula jiro ay tahay mid ka duwan mid dalalka kale ee carabta ay kula jiraan. hadalkiisan oo lagu daabacay warside ka soo baxa waddanka Sacuudiga ee la yiraahdo Al-Majalla ee al-Sharaac waxa uu ku sheegayaa nidaamka ay Suuriya raacayso wuxuu ku salaysan yahay inayna wax dhibaato ah kala dhaxayn wadamada dariska ah. saatee wuxuu ku nuxnuxsaday in xiriir caadi ah Israa'iil la yeesho miiska nooma saarna ayuu yiri. heshiiskan ay saxiixeen buu yiri dalalka ayna la saxiixdeen buu yiri Israa'iil ayagu ma laha buu yiri dal xoog looga haysto colaad toosan Israa'iil kala ma dhaxayso. xaaladda Suuriya way ka duwan tahay buu yiri sida waxaana laga haystaa buruleyda Golan. waxaa kaloo sheegay in heshiiska Abraham ee dowladda Maraykanka ay dhexdhexaadisay ee ay saxiixeen xilligii hore ee madaxweyne Donald Trump 2020 dalal ay ka mid yihiin isu taga Imaaraadka Carabta, Bahrain, Suudaan iyo Morocco in hogaamiyaha Suuriya uu qabo in xaaladooda ay mudnaanta siinayaan sidii loo soo cusboonaysiin lahaa heshiiskii ciidamada lagu kala fogeynayay ee soo baxay 1974 ee qaramada midoobay oo ay Israa'iil ay dhawaan ku xadgudubtay sidii lagu xasilin lahaa koonfurta Suuriya iyadoo oo ciidamo caalami ay kormeerayaan. aragtidaas ayaa noo muuqata ayuu yiri. waa gartay waa yahay xagga diblomaasiyadda aynu eegno markan Ruushka hore imaan doonaa dhulkan horle ku qabsaday Ukraine, laakiin Israa'iil maanta waxay ku dhawaaqday personal carta inay u jartay madaxweynaha Brazil kadib markii Brazil ay diiday inay qaabisho warqadahana ka guddoonto safiirka cusub ee Israa'iil. Israa'iil waxay ku dhawaaqday inay hoos u dhigtay
xiriirka dhanka diblomaasiyadda ee Brazil ay la lahayd laakiin dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil wadamada reer galbeedka ayuu eedeynaya arrimaha aqoonsiga dowladda Falastiiniinta ay yeeshaan warkaas Maxamed inoo faahfaahay wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Gideon Saar ayaa ku eedeynaya wadamada reer galbeedka inay isku dayayaan in ay go'doomin siyaasadeed ama qabsi siyaasadeed ku soo rogaan Israa'iil ayagoo taageeraya xukuumadda ay Falastiiniyiintu leedahay dadaaladaas ayaa waxaa horseed ka ah buu leeyahay xukuumadaha bidixda u janjeera ee ka jira wadamada qaarkood oo ay ku jiraan Faransiiska, Britain, Canada iyo Australia wadamadaas ayaa waxay isku dayayaan buu yiri inay xaalad abuuraan waa sida uu u sheegay shir jaraa'id oo uu la yeeshay mid ka mid ah ururada ugu waaweyn ee yuhuudda ay leeyihiin madaxweynayaashooda sida laga soo xiganayo wargeys ay yuhuudda leeyihiin oo la yidhaahdo Artos Sheva halkan buu yiri in dowladda Falastiiniyiintu leeyihiin lagu aqoonsado ayaa waxay u tahay buu leeyahay isdil marka la fiiriyo qof naftiisa qaarijinaya marka la fiiriyo dhinaca Israa'iil marnaba ma ogolaan karta buu yiri in xukuumad Falastiiniyiintu leeyihiin la aqoonsado haddii buu yiri xukuumadda ay Falastiiniyiintu leeyihiin daanta galbeed laga abuuro shucuubta ku nool magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil khatar ayay ku jiraan saar hadalkii sii wada ayaa waxa uu yiri xukuumadda Israa'iil magaceeda ayaa lagu isticmaalayaa daanta galbeed wada wixii ka ah galbeedka Jordan ma ogolaan doona buu yiri in dowlad madax bannaan laga abuuro iyo ciidamo aanan ahayn ciidamadeena waxaana muuqata buu leeyahay arrintaasi inay khatar amnigooda ku tahay waa sida hadalku u dhigay waa gartay aan ku soo gabagabayno falaqaynta ee warkan ku saabsan dhulkan hor leh Ruushka uu qabsanayo Ruushka waxa leeyahay waxa ka go'an Donbas in markaasi aysan noqon meel laga wada hadli karo oo Ruushka uu la wareego maxay ka macno tahay iyadoo wada hadalla ay socdaan Ruushka dhul hor inuu qabsanayo Ukraine kala wareegay Maxamed Ruushka qodobadii uu soo jeediyay kaliya ayaa nabad lagu gaari karaa sida qabiirada hadalku dhigayaan dhexdhexaadintii uu Mareykanku waday hadda gaabis ayay noqotay kubadda waxay ku jirtaa xerada Ukraine iyo wadamada reer galbeedka inay nabad qaataan Ukraine haddii dhul ka taqalusi weydo sida madaxweynaha Mareykanka hadalku dhigay dhulka oo dhan ayay luminaysaa waxaana la tilmaamayaa in aynan tabar iyo taag midna u lahayn iyo agab military in ay khadka difaac xajiso marka ka dambaysa waxa leeyahay waxay luminaysaa dhul askarta Ukraine ayaa lagu tilmaamay inay daalan yihiin tabar daran yihiin baqaya waraha bulshada ayaa waxa laga arkay sawir video ah oo nin dhaawac ah oo Ukraine ah ayaa wuxuu isku dayaa in dhufays galo midkii dhufayska ku gala ee ku jiray ayaa u diidaya si oo uga dhuunto diyaaradaha droniska ee qarxinaya ayaga laftirkoodii ayaa xataa is ogoleen kii dhaawac ah buu rabaa inuu meel kale raadsado oo ku dhinto inuu dhufayskiisa ugu soo galo ayuu diidayaa marka Ukraine waxa leeyahay ciidamo badan ayaa isdhiibaya xaalku waa ku xun yahay waxaana muuqata sida hadalka loo dhigayo Ukraine inay dagaalkan sii wadi kareynin marka la fiiriyo xaaladda dhulka ka socota iyo sida Ruushka u dardargeliyay weerarka xagga cirka ah asagoo isticmaalaya diyaarada droonisa iyo gantaalo guuxooda ka dheereeya iyo weerar abaabulan oo goobaha xasaasi lagu burburinayo oo ay ka mid yihiin kaabayaasha militariga iyo magaalooyinka waaweyn waa hagaag Maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashana ay mahadsan yihiin inta ayaan ku soo gabagabeynaa caawa barnaamijkii daaw horeysa nabadgelyo